meeshana dhibaato ka dhacday dacaruurina ku dhimatay dad badan annaga oo ku jirna carwadana aanu ku nafwaay gaadhnay ilaahay dabdamiska noo soo direen soo badbaadiyeen oo gacmaana soo qabteen laagtan iga dambaysa ayaa qaaday 3 caruura kuwaasi oo laga reebay 2 ka mid ah halka oo hal qofna ku geeriyooday roobabkii maanta daay ayaa sababay roobab badan in ay ka soo rogmadaan laagtani xaggeeda sare isla markaasina sababay in ay qaadaan 3 caruura oo ka soo jeeday wadanka Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda Oromada goobtani oo Hon Cable TV u booqday ayaa waxaanu ku aragnay in ay qaadeen gurigoodii iyo welibana goobtii ay ku sugnaayeen kaasi oo laga raray caruurta intii kale iyo welibana wixii u dhex yaalay guryo badan oo kamid ah guryahani idin muuqda ee iga dambeeya ee laagtani agagaarkeeda ku yaala ayaa ay biyahan roobka maanta galeen waxaana looga digayaa dadka iyagu ka agdhow dooxyada in ay ka fogaadaan xilliyada roobka bismillaah assalaamu calaykum waxaan u sheegaynaa sida inanku wariyuuba sheegay meeshana dhibaato ka dhacday dacaruurina ku dhimatay dad badan annaga oo ku jirna carwadana aanu ku nafwaay gaadhnay ilaahay dabdamiska noo soo direen soo badbaadiyeen oo gacmaana soo qabteen ilaahay baa ku mahadsan leelkiina nalaga ofkareeyay biyihiina waa nalaga saaray dadka meeshaasna mashaqa ka dhacdo reeraha yaala cidda ay khusaysa dawladda hoose iyo dawladda dhexe iyo madaxweynahaba cidda ay khusaysa reeraha degan dooxa qarkiisa ee maanta dadku kaga dhintay soo gaadha shirkadda Telesom waxay qiimo dhimis ballaaran kugu samaysay internetka mobilka internetka bilaayan xadidin waxa lagu sameeyay qiimo dhimis 25% hadda waxaad ku helaysaa $15 oo kaliya shirkadda Telesom waxay sidoo kale 20% qiimo dhimis kugu samaysay internetka iyo ku hadalkii bilaha ah ee wada socday hadda waxa laga dhigay oo kaliya $20 si aad ugu shubato internetka aan xadidin waxaad ka wada helaysaa dhamaantood oo aad doorataa xidhmo unlimited ah macmiil ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee lagu sameeyay